كابتن اسكلاتشي waxaan ugu talagalay sidii magaceeda boqor hadii aan maasada yara taabto si fiican boqor ku baahdo bari ku baaqay bilan lagama beeray bishani bishaaray bashaashtan u bogayay baashida jacaylkiyo baashal baabaan u bukay barka maga bogana bureeqay baariyay barti boodhari baan bariyaan ka baqaye baabi boogto bishani bishaaray horta heesta qiso asal waxaan u talagalay BK ugu talagashay inta kasafanka ka baxay si fiican wadaadkii ugu talagashay ninkaas fag waa ka baxay waaw kasafanka ka baxay wayna hada fanaan kale fag waa ka baxay ilaahay ka soo hanuuniyay waqalay qiimo qaya agteeda kale fanaan qiimo lahaana mudin loo dhiibo marka waxaan kaamil ahaye waqalad kaamil qaadi ku socotaay uu kaamilaya wees qiso laga qoray waa qaaradaha qeyro kale soo cishqabay qaribay qalanjo qaabkii qiimaha lagu qadariyaa qalbada ku filato qeyrkeed uga qabay waaw qomamadii qeyskii qaaday qowraansigu qarqareedii qandhadii qatimay qoodkii qalasho qaaxadii qafay qabatay lama qoostay qumalee qorsheeya hooyay haybadaada lama wada helayee jannadii ku hooyo harso hooskii ilaahay adaa lama huraane habeenkii haadoon haadayn adaa habay ubadko hurdadaada huraye horta yaa ku heli kara ma isa cabdilqaafku waa nacbanahay raabkii waxa waa kasoo horjeeda ma wataago fanka inooga cayaaraya ilmaha raabeeya waxba isku shideenin kuleelka jikada si aad u samayso macmacaan waxa ku fududeysay Akrami Sweeties macmacaan walba oo aad jeclayd hadii waa halaha kii Turkiga amaba ku laga isticmaalo Carabta macmacaanada aad ka heli kartid Akrami Sweets waxa kamid ah baklava basbuusa iyo balaxshaam sidoo kale waxaad ka heli kartaa azaabic zaynab iyo buskudka Petit-Four kama marna tortooyinka iyo buskud naqshado kala duwan leh Akrami Sweeties munaasabada ciida awgeed waxay kugu talagashay macmacaanada ay soo tiriyay iyo kuwa kale oo ka badan si aad u soo gaarto Akrami Sweeties kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal wacan Ramadan Kareem waxa ila jooga caawa abwaanka ugu daadeer inta abwaan ay sheegato Soomaaliya waa abwaan father of love legend of the legend soo dhaw the one and only maxaan ku dhahaa wiilka dunida kale ka yimid aad iyo aad baro dhawaa Najiib amaanta quruxda badan wax ka qaba walaal si fiican caawa maxaad iga filaysaa inaan soo jeediyo abwaanka horta magaciisa oo dhameystiran ayaa la rabaa haye soo daa magaca abwaanka magaciisa oo dhameystiran waa Hana Xasan Ciise Roble oo ku magac dheer father of love waa bi jaceelka waliba isagoo yar ayuu jaceel galay ninkan oo aan qaan gaarinba waayahay dabcan abwaankan hore ayaan u soo bandhignay waxa uu sameeyay hees badan album hore uu soo sameeyay 12 hees waxaan ku soo gudbinay muuqaal hore oo sanadkii tagaa hal album dhan uu soo sameeyay oo 12 hees ka kooban caawan wuxuu dhahay heesa kalaan hayaa oo aan ugu talagalo yiri ciid xitaa inaan siiyo fanaaniin waaweyn isaga caawa fanaaniinta waaweyn caawa ugu talagalay heesaha isaga noo sheegaya abwaan soo dhawow imise fanaan waa horta fanaaniinta heesaha ugu talagashay yaasa kamid ah ugu horeyn lajanka qaaliga ah fanaankeena codka baxsan كابتن اسكلاتشي waxaan ugu talagalay sidii magaceeda boqor boqorad mis boqor haye macnaha boqor marka la leeyahay naag baa iska gaday ma faantay si fiican oo waxa uu leeyahay haye hadii aan maasada yara taabto si fiican boqor ku baahdo bari ku baaqay bilan lagama beeray bishani bishaaray boqor ku baahdo bari ku baaqay bilan lagama beeray bishani bishaaray bashaashtan u bogayay baashida jacaylkiyo baashal baabaan u bukay barka maga bogana waaw bashaashtan u bogayay baashida jacaylkiyo baashal baabaan u bukay barka maga bogana balan lagama baaqday baxsan bahdaada biri baan u tagayaa beenku baan barbaarin balan lagama baaqday baxsan bahdaada biri baan u tagayaa beenku ma barbaarin beledkii barwaaqada bashashtiyo baraaraha barbaarti buuxday adan ku bareeray badanka bugsi beledkii barwaaqada bashashtiyo baraaraha bulshadii buuxday adan ku bareeray badanka bugsi bureeqay baariyay barti boodhari baan bariyaan ka baqaye baabi boogto bishani bishaaray bureeqay baariyay
barti boodhari baan bariyaan ka baqayay baabii boogto bishani bishaarey heesta qiimaha leh iyo abwaanka iyo fanaanka qiimaha leh isku qalmaan run ahaantii najiibo isku qalmaan heesta boqor oo markaasi ugu talagalay fanaanka weyn lajan laxmiiste waa almuhandas maxaan dhahaa fanaanka codka macaan ayuu ugu talagalay iskilaaji isaga laxmiiste isaga codaya waa nin banaankiisa ku dhacay heesaha inta badan uu sameeyo waana heesa markaasi qisooyin dhab ah ka hadla aniga gaar ahaan fanaankaas waxa uu yahay my favorite waa aadan fanaaniintu wuxuu ka mid wala dhacay fanaanka wala waa fanaan qaaliya heesiisa haddii aad dhegaysto qalbi taabad baa ku jira si fiican hadalkaaga waxaa la yidhi ama qalbi ha taabto ama meel ha tilmaamo adiga maxaad ku dooratay iskilaaji heestaan ugu horreysay inaad u dhiibtid caawa iskilaaji waxaan ku doortay cod ka baxsan si fiican iyo heesaha murtida leh aad iyo aad waxaa la yidhi nin wax haysta waxbaa lagu tara marka nin waxa sax lagu darsadaa marka taageerta ninka waa nin qiimo leh qalantii uu leeyahay cod baxsan uu leeyahay laxmiista waaye heestaan isagu dar waxa sax lagu daray walaa sax marka sidaas dartada ula garoosatay waa un gartay iskilaaji dabcan muuqaalkan waxaan filayaa inuu soo gaari doono waa dabcan fanaan muxtarima dadka dhan aad markaasi u jecel yihiin waa fanaanka kaliya aan mucaarad lahayn fanaankan mucaarad ma laha ma balahan محافظ معارض ملح ما معارض ملهم محافظ بركي واحد ير إي وين بوكدم بيان وكدم بيان أنا مرة فينا عض بحث أنا مرة ويحس قلبي جاي قطعنا أسيبه بس تبتقان تذكير اللي يشري ممكن قاضي ها أنا يرونا أنت أنا بيجي على زي بدا وأنا وأبان كهر من الجاري ضدك الجحيو كله معناه واحد تذكير اللي يشري حتى نسكت يعني ده حنا جنا ولا تنتهينا يا نكيري ونكا هذه من دايلها ما ينك هرسعو تلي وياي اسكلاجي أيوه هستا مركا ugu talagalay اسكلاجي dabcan waxaan ku leeyahay brother waxa abwaanka ku soo neestay muuqaalkan dug soo gaaran aad ban ku salaameynaa lajan dabcan waxa tahay fanaan bulshada Soomaaliyeed aad ay u jecel yihiin waana fanaan markaasi heesooyin qisooyin dhaba ka hadla waana fanaan markaasi gudbiya fariimo sax فانكر السيد لو قلت لك ولا فانكر نيك كليه فانكي ورا عمل نيك فانكي ورا عمل وهس اسغا لا وا نيك كليه hadii waxati la yiraahdo maantay boqorka fanaanada hala soo doorto run ahaantii abwaanada hadii lagu dhihi lahaa barbakee abwaan baad waxba qiimeyn kartaa waxbaan qiimeyn karaa yaraan lagu yismaa waa yartaa mogta hadda in lagu yismaa lak abwaan baad waxba daristaa waxbaad qiimeyn kartaa waxbaan qiimeyn karaa iskalaaji baad dooran lahaa hadii la yiraahdo boqorka fanaanada dooro waayahay karago laba sar هسه حتى معنا قنيصة يفرانك أقول لك إيش هسه هسه نوح على رامي هذا قصة يا قصة واي قصة ما قاعد هي معناها الشكة كنت مدرستان الشكة ده شكة كده هي ما كواحد ليري أنا جو كلب إسكو كتشوجا سفعان واحد اللي يقول حنا ضو هرت حرير مي الله ده هاي صح واحد ماشى مريا سفعان مقفك وجرتها صح هي وان يا بيو واحد ليري أنا إذا الكفتن بيجا هيدا وحنا سكير قصة ولا يجا قرر صاحب قبلها باشيء قصة مثل عود هذا قصة بيجا قرر عود هذا سفيان مثلاً سيرة تحرعه يا وحنا كنا صاريستي بقر استي بقر وهذا اسكلاجة سينيس أكيد صارتي تعبت ما كنا صارتنا قصة كلها بتي سفيان هذا قصة اللي رانكو صاري صح هي قصة أوكي قصة سود عيسى يا سقادة دون فنانك أقول لك عشان يابا أوي بيس أستاذ فنانك أوي إن شاء الله وحنقون دونا وحنقون دونا فنانك أنا قلت لك علي هرتو هستا قصة أصل وحنا قلت لك علي بيكي قلت لك أنت قصة فنانك كبحي سيفيان وذاتك ما قلت لك شو نكاس فنانك كبحي واو قصة فنانك كبحي وين هذا فنانك بيكي لا كسوان ها إلهي بقسوانوني سفيان نيك إلهي نون دونا كذا وما كان بدأ بالي كوده سفيان حتى فينا وانا استودادنا سفيان هذا يدور الحي أنا قا هذا قيست قسوة صمان قالت كامل ما صينه واو كسب بحلها لجنك أوكي قالت حتى نك أنت أنا وبين هيه هسه واحد لما قاعد القصة هيه كتر وقع علي قيمة قاية أكتر ذا كله هيه فنان قيمة لها أنا مدين لو ديبو وقالت كاملة هيه وقالت كاملة خادك وسعتاي وكاملة يا بيس هيه قصة اللي قريبة قاردها قيرك للسوء عشق بيقربي قصة اللي قريبة قاردها هيه قيرك للسوء عشق بيقربي قلنجة قابكي قيمة هلو قدرية
qalbada ku filato qeyrkeed uga qabay waaw qalanjo qaabkiyo qiimaha lagu qadariyaa qalbad ku filato qeyrkeed u quursaday qotonkiyo quruxda qorash lagu qiyaasaa qani qaalmo qaybshiyo qoys u qalantaa qotonkiyo quruxda qorash lagu qiyaasaa qani qaalmo qaybshiyo qasri u qalantaa aadiya qarnigan qariibka quman qeyrkeed qaayo dhaafto qafaasha qalbiga qarnigan qariibka quman qeyrkeed qaayo dhaafto qafaasha qalbiga qayskii qaaday qowraansigu qarqarada qoomamadii qayskii qaaday qowraansigu qarqarada qandhadii qatimay quudkii qalasho qaaxadii qafay qabatay lama quusiyey qumalee qorsheeya qoomamadii qayskii qaaday qowraansigu qarqarada qandhadii qatimay quudkii qalasho qaaxadii qafay qabatay lama quusiyey quman lee qorsheeya run ahaantii fanaankeena qaaliga ah Khalid Kaamil heestaas aad iyo aad ugu qalma waa amisana waliba inuu meel saarayo meel buu saaraya qisooyinka waxba aad ugu fiican yahay aad ugu fiican fanaan Khalid Kaamil isna waa la xamiistay fanaan waa adi marka waxa sameynaysaa saaga bis dhiboosid fanaanka oo isku dhiboosaa la soo tuuroosaa la xalada la xameeso adina qaado dadku xogaa ugu dhaleeceeyeen waxay yiraahdeen maadaama aan abwaan tahay fanaan heesaha qaada sidee baad u weysay adiga waxaan qiimaha la curinaya si fiican marka waxay wili madan lama istaagno maal magacaabo ruux صح يا عورك بقى magacaabo qiimo agtida Khalid Kaamil dawaan anoonli waa daabado ta muuqaalkan legend wuuna ku soo gaaray insha Allah waan rajeenayaa markuu soo gaarto abwaanka heestan adoo ku hibay waa inaad si degdeg ah hees ugu soo jawaabtaa abwaankan adoo ku hibayay iyadoo qorana wuu hayaa iyadoo qoraalna wuu hayaa iyadoo akhrisa iyadoo sheegida si fiican sheegida micnaha heesta la kala dhigay isagana laxanki isaga kulanay isagana saari doona codkii hees kale magaceeda la yiraahdo hooyo waaw heesta hooyo heesta marka heestan xigta heesta hooyo noo soo wadada heesta hooyo aad iyo aad uma dhameystirna xogaa laakiin waynin soo bandhigaya macnaha waxa beejki hore sameysay qoraal ku socda macnaha aan fahmay qoraal ba ku socda okay haye hooyay haybadaada lama wada yaudi batri ya heesta yaudi bisa heesta wuxuu dhibay Gulesimba legend way si fiican waliba waa fanaan cabaara la jooga halko heesa la soo tuura 10 kisman loo xirnaa waa fanaan fanka u nasta 10 kisman waa xirnaa macnaha ay sheeg labada bil 10 lagu xirnaa waa ninkaas waa another level waa dunyo kale ku yimid bala wallahi okay heesta marka isaga sinamo guleedan siinay Gulesimba waan soo dhameystirnaa wala dhameystirnaa isna la xamiin kala noo balna isaga heestamo okay qaybta yar oo hooyo wax yar nooga tago marka hooyay haybadaada lama wada helaye jannadii ku hooyo harso hooskii ilaahay ada lama huraane hooyay haybadaada lama wada helaye jannadii ku hooyo harso hooskii ilaahay ada lama huraane habeenkii haadun haadayn adaa habay ubadko hurdadaada huraye horta yaa ku heli kara habeenkii haadun haadayn adaa habay ubadko hurdadaada huraye horta yaa ku heli kara halyaayada guusha hooyo iyo hablaha loo hanweyn yahay macnaha inamada quruxda badan oo anigoo kale u hanqal taagayo hooya habto habeena dheexa aawadeeda hurdada ugu go'day muuqataa halyaayada guusha hooyo hablaha loo hanweyn yahay adaa habay horaadko hawlahaad uga haray islaantu ama gabadhu markay uur yeelato ama ay caruur dihanayso si fiican yaa saaxib aye wax walba ay higanaysay haday dhaqtarada ahayd cunuga baa ka reebaya si fiican haday himina lahaydna cunuga baa ka reebaya sax marka hooyo waa lama huraan hooyadu waa lama huraan waayo heestas diyaarna ma quurno aad iyo aad waa tahay heestasna waa gulad simba ayaad ugu tala gashay waayahay abwaanka wax waaye heeso badan oo kala duwan ayuu markaasi soo diyaariyay oo ugu tala galay fanaaniin kala duwan in markaasi uu hibeeyo si markaa ayagana ay u soo qaadaan fanaanka wax waaye abwaanka wax waaye waa qoraal iyo wax buu sameeynaya juhdi badan uu sameeynaya waana abwaan aad u daayar oo markaasi hadda ayuu soo koraya abwaanka markaa saaxiib waxa jirtaa abwaanka ma qajirata 16 jir abwaanka waa 16 jir still waa yar yahay
waxa waa ilkii hataa waa dhacsada waxa waa weli ma soo bixin marka abwaanku waa yar yahay ma yadeel guuso ilka waan ilka waa soo kashanaya ilka abwaanku waxa waa ilka wax waa baroon isagoo ciyaarayo ayuu nin walaalkiis ku dhacay marka labada ilkii abwaanka waxa waa ka daatay waxa waa insha Allah wala soo xidha abwaanka wuxuu u qeyran yahay wuxuu u baahan yahay garab istaag degdega waliba gargaar waliba ilka dahaba istaashay in lagu xiro wallahi ya ragga madasha muuda waana u wacan sida ismoodayo haye kasta soo wacan yaa bali qusbaanka caaqilka iyo caaqaba wisla wacnaadaan baa leeyahay laakiin anigu run ahaantii iskama waalo xogaa dadka iskama gadgado marka umada la sheekaysto caaqil baa lagu tilmaamaa qofka bini aadanka waxa uu yahay iskuma aqoonsana ma fiican dadku waxay isku dawaan buuya ani ruuxaanta waxa isku malaynay qof iska caadi oo dadka waxba dheerayn oo salaagisa oo caadi ralaakisa degnaan waan gartay maxaa la yiraahdaa ii sheeg abwaanka waxa waaye waa soo jabhadeeyay waa legend maxaa la ii sheeg meelo badan oo kala duwan ayuu abwaanka markaasi uu soo maray gobolo badan oo kala duwan oo soo maray abwaan horta gobolka ku soo barbaartay marka lagu celi horta Elburba dadka aad kugu soo biiraya Elbur ku yaal caynkeedu leedahay magaalada Elburba ku soo barbaaray ninkan wuxuu ku soo barbaaray Elbur ayuu ku soo barbaaray halka ayuu funky halkaas ayuu ka keenay dugsiga dhexe dugsiga hoose iyo kansaraba xamar baan ku qaatay laakiin barbaaritaankaagii iyo halkaas aad ka soo bilaabay halka baan kale marka af Soomaaliga fasaxa iyo dhinaca iyo curinta iyo halkaas aad kala timid waayahay marka waxa jirtay maasayr oo magacayga ninka waa soo jabaaday deeyahay maasayr oo magacayga aan ku xusay laakiin isku ma amaanayo xogaa rajis ay haad socoto magacayga ku xusaya qofna oo wacanaya xogaa waxa la yiraahdaa hadii ka ay baasho ka tan badato reera waa loo ciidaa baa la yiri kowday aadiyad habeen baasho ila tagto xogaa هاي محل المكان. عن يراه ناسي. صح هي. أنت أركنين حواي قشطن. فعلا هي. مكواعري. مركل. أنت كم بالكل ما بينك. هي محل المكان حكيت رسي. ما صو. هي محل. هذا واحد هذا. حند بريد هذا. هي يوت شيء كذا. سو ما لذو يحول على قف كستو هرمرجع. قف كستو هدية أما قف كستو واحد استبع. حند بيويرته. أديات. ما عاوي يقول عباني. حند كان. aniga iyo magacayga waa isku qalanaa aad u weyn haye marka waxaan iri hanadkii horeeyaba inan yara hagayse macna Soomaalidu waxay ku amaahdaa ninka soo hormar gaara naag ba ka dambaysa si fiican marka taaban ka keenay okay iyo wad sheekada marka hanadkii horeeyaba inan yara hagayse haye haybinteeday hayga habsaamin iyo howlahaada hanadkii horeeyaba inan yara hagayse haybinteeday hayga habsaamin iyo howlahaada halkaaga higsigayga hadalada haboon oo haliyay hormariya igu habeedhe halkaaga hay higsigayga hadalada haboon oo haliyay hormariya igu habeedhe hakki hooga iyo hadii hagaaga hay hogaanka halka horeeysa iyo hagaadhe haween hagaaji hadafka iyo fantaaqada iyo hadeeyagana himiliga horsedeed يا سلام hagaaji hadafka iyo fantaaqada هي iyo hadeeyagana himiliga horsedeed haween halaastayda hinaasay habeen hore nin habeesto helay hambaliyo u hindisayste igaarsi heede igaarsi yeeshe igaarsi hay markaan leeyahay hagaaji hadafka macnaha waxaan ka wadaa oo waxaan aan damcaba ay u raaceen halka wanaagsan oo ila dayday iyo fandaaqada dadka dhahaya mahanad baa hormar gaarsiin kartaa hadda meel wareegayahay waxa iska dhaho iyo fandaaqada iyo hadda heegan hadii aad baa ila jeclay haddaan rabaa ila jeclaa adiguna waayahay himilay horsedeed abwaane dabcan wax waaye maxal yiraahdaa ii sheeg waa abwaanka waa abwaan Soomaaliyeed waa abwaan daayar dabcan curintiisa iyo sidoo kale labuurkiisana waxa uu yahay mid markaasi cajiib ah abwaano badan heerkan oo kale markay ahayn ka war abwaanada xusi kartid oo sidoo kale waxba curi karin kamid ah sidoo kale waxa kamid ah saa horta ninka la yiraahdo magaciisa Hadraawi waa nin aad agtid qiimee qayo wala si fiican marka ninka waa taageersan abwaanada Soomaaliyeed kuwa aan ka taageersan waa ku daydaaba ninka aad iyo aad laakiin aniga run ahaantii fanaaniinta ay qalad iyo fahmayaan ama xogaa waxiga shaki ka galayo si fiican waxaan u sheegayaa in anigu aan jeclahay xaraf inaan qaato oo xarafka ka wado si fiican dilqaafka sideeda waa iska ilaaliyaa aad iyo aad dilqaafka si ilaalisa dilqaafka aad iyo aad waxa la yiri gubta dilqaafku ma dhawaaqdo aad iyo aad
wax kastoo xun baa deeqaaf la yiraahdo ma ogtahay aad iyo aad Soomaalidu heesta un bay moodaan wax qaarkood kastoo xun waa deeqaaf aqalkuwa aqal kastaba deeqaaf u qala wax kastoo xun marka aqal baa tahay aqal daayira taa waliba ninkan wax waaye waxa jirta ma sakalo magaca la yiraahdo calmasho wax waaye aad u weyn tahay age-kiisa waa yar da'diisa waa nin yar laakiin maskax weyn ku xiran ma sakalo la yiraahdo calmasho ii sheegay inta marka la sheegaysanayno dadka waaweyn oo la shaqsano jecel yahay wuxuu dhahay aniga ilmaha yarka xitaa oo dadka faaciga ama dhaxgal u dhahay dadka iga waaweyn ayaan jeclaa walaal marka wax aan ka korarsado inta badan wuxuu badanaana waxaan geliyaa oo waqti ugu badan inaan wax aan qorqoro oo aan diyaariyo oo maansooyinkaas aan diyaariyaa oo dhahay oo heesaa abwaanka dabcan wuu soo jabhadeeyay qaybtan waa Part 1 iyo abwaanka heesiisa iyadoo Part 2 aan idin soo gudbin doona insha Allah maalinta xigta oo aad la socon doontaan fanaaniinta qiimaha leh waa salaamaya idiidaya kuleeyahay fanaaniinta kula ciida Soomaa daawadayaasha iyo fanaaniinta kulli wuu kuleeyahay kan xaqul ciidada kuleeyahay xaqul ciida abwaanka idinku kuleeyahay waliba daawadayaasha qiimaha leh xitaa wuxuu jecel ciid inuu ku yido oo jeesayo heesaraab abwaanku wuxuu dhahay ma haysa Cabdilqaafku waa nacbanahay raabkii waxa waa ka soo horjeeda ma wataago fanka inuu ciyaaraya ilmaha raabeeya ya fanka shadii ka siiganba ilmaha raabeeya buumay ku wadaan busaab raabka la waa Soomaandi hadda ma inooshu waa jilka baa ku qanacsan haye akaniga waxay weyn qancin doonaa asxaabtida qiimaha haduu yar baa tahay inuu heesaraab maxaa garweys marka hal heesto ku soo gabagabeynaya haye ama tixyar oo gaaban si fiican tixdaay kale waxaan u dhigan doonaa qaybta Part 2 iyo fanaaniinta xigta nala socda halkaaga tagana Ramadaan Kariim